Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. 1980 Maraykanka, nin ayaa wuxuu ku dilay dhowr gobol oo kala duwan, dhalinyaro kala duwan. Sababta uu u dilay dhammaantoodna waxay ahaayeen madow. Wuxuu ahaa nin cunsuri ah oo caddaan ah oo madowga neceb. Arrinkaasoo keenay in dadkaas uu dilo dembi la'aan. Dembigooda keliya wuxuu ahaa inay ahaayeen madow. Markii dambe oo ay dambibaarayaashu ogaadeen cidda uu yahay oo ay baareenna waxay ogaadeen inuu ahaa nin ku soo koray magaalo dadkeedu ay u kala qaybsan yihiin madow iyo caddaan, oo magaalada dadka deggan waxay u kala degganaayeen madow iyo caddaan. Sidaasna waxay ku ogaadeen in tan iyo yaraantiisiba uu cunsuriyad iyo madow nacaybka ku soo koray. Sidoo kale waxaa la yaab lahaa sidii ay ku soo qabteen. Boolisku iyagoo tegay hotel oo doonaya inay soo qabtaan 2 tuug oo hoteelka ku dhuuntay, ayuu wuxuu ku yidhi maamulihii hoteelka, booliska u sheeg waxaana dhibaya baabuurtooda dhawaqooda iyo sidoo kale nalalka baabuurtooda meesha isaga tagaan. Markii ay baareen booliska qofka sidaa yirina waxay ogaadeen inuu yahay dilaal la raadinayo, sidaa ayayna ku soo qabteen. Muuqaalka maanta insha Allah waxaa kaga hadli doonaa dilaalgii madowga. Habeen ka mid ah habeenadii bishii Agoosto sanadkii 1980, magaalo lagu magacaabo Salt Lake oo ku taalla gobolka Utah ee waddanka Maraykanka, waxaa isa soo raacay 4 dhalinyaro ah. Kadibna waxay soo aadeen beer lagu magacaabo Liberty Bar. Waxayna u soo aadeen marka hore inay aalamiiteeyaan oo ay ordaan, laakiin markii dambe waxay go'aansadeen inay iska lugeeyaan. Dhalinyaradaas waxay ahaayeen Ted Fields oo 20 sano jir ahaa iyo David Martin oo 18 sano jir ahaa. Sidoo kale waxaa la socday Terry Elrod. Terry Elrod waxay ishukaansan jireen David Martin. Habeenkaas waxay soo waday saaxiibteed oo lagu magacaabo Karma Anderson si ay ula kulanto Ted. Intii ay isla socdeen, qof walba wuxuu ku mashquulsanaa qofka kale, laakiin waxaysan ogeyn in nin wata qori sniper ama shamshootara uu qorigiisa ka fiirinayay. Wax yar kadib, David ayaa dhulka ku dhacay. Kooxda kale waxay moodayeen inuu dheelayo ama inuu kaftamayo, laakiin Terry ayaa gacanteeda waxay ka dareentay sida inay wax ka mudeen oo kale. Markii ay fiiridana waxay aragtay dhiig. Sidaana waxay ku ogaadeen in David uusan kaftamayn oo ay xabad ku dhacday. Ted labadii gabdhood ayuu wuxuu ku yidhi idinka carara oo dhuunta. Isagana wuxuu isku dayay inuu saaxiibkiis caawiyo, laakiin isagana waa la toogtay, halkii ayuuna ku dhacay. Ninkii intaa kadib waa iska tegey, meeshana waa isaga cararay. Booliska markii ay yimideen goobta, Ted mar hore ayuu dhintay, laakiin David waa uu sii noolaa. Intaa kadib David ayaa meesha laga qaaday, laakiin wuxuu geeriyooday intii cisbitaalka loo sii waday. Intaa kadib dambibaarayaashu waxay bilaabeen inay meesha baaritaan ku sameeyaan, laakiin waxba ay ka waayeen. Sidoo kale waxay baareen agagaarka meeshii uu dilka ka dhacay. Meel u dhow meeshii lagu toogtay labada nin ayay waxay keeneen raadka baabuur. Raadkii baabuurkana waa ay sawireen. Sidoo kale meel ka agdhow meeshii ay raadka keeneen, meel yar oo cawsa ayay waxay keeneen fooqyada 6 xabadood. Intaa kadib fooqyadii xabadaha waxay u direen shaybaarka, waxayna isbarbar dhigeen xabado ay ka soo heleen jirka nimankii la dilay iyo fooqyadii xabadaha, waxayna noqdeen isku mid. Sidoo kale waxay ogaadeen in qoriga xabadaha laga riday uu ahaa qoryaha 6 xabadood ay gasho. Intaa kadib dambibaarayaashu waxay wareysteen Terry Elrod. Terry waxay u sheegtay in habeenkaas ay isi soo raaceen 4tooda. Markii horena ay u soo baxeen inay ordaan, laakiin markii dambe ay go'aansadeen inay iska lugeeyaan. Xilli ay socdeen beertana, David ayaa dhulka ku dhacay. Iyadana gacanta ayay waxay ka dareentay sida inay wax ka mudeen oo kale. Intaa ka badanna uma aysan sheegin, sababtoo ah intaa kadib waa ay carartay. Intaa kadib waxay u yeereen qoysaskii gabdhaha si ay u wareystaan, gaar ahaan Terry aabaheed. Waxaa lagu magacaabaa Teach Elrod. Isaga waa ay ka shakisanaayeen, sababtoo ah isaga waxay ogaadeen inuu dhibsan jiray in Terry ay saaxiib la tahay nin madow. Markii ay u yeereen kadib uu yimid oo ay wareysteen, waa uu inkaray inuu wax luga ku lahaa. Sidoo kalena wuxuu u sheegay dambibaarayaasha in habeenkaas uu safar ku maqnaa. Intaa kadib waxay ogaadeen dambibaarayaashu inuu hadalkiisu run yahay, kadibna waa iska direen. Maalinkii xigayna waxay ku laabteen meeshii ay ka heleen raadka lugaha baabuurka si ay baaritaan dheeri ugu sameeyaan. Meesha markii ay yimideen, nin daris la ahaa meesha ayaa wuxuu u sheegay dambibaarayaasha in galabtaas uu arkay nin baabuur wata oo meesha taagan. Ninkana waxaa u furaa baabuurka sanduuqa dambe, wuxuuna u ekaa qof sanduuqa dambe wax gelinaya ama wax ka soo bixinaya. Wuxuu u sheegay ninkii markii uu ka soo ag dhawaaday uu ku yidhi maxaa meesha ka haydaa. Ninkii isaga oo la hadlin ayuu baabuurkiisa raacay, kadibna waa uu baxay. Wuxuuna u sheegay inuu ninku ahaa nin dhuuban oo caddaana. Sidoo kale baabuurka uu watayna uu ahaa baabuur guduudan oo nuuciisu yahay Camaro, laakiin ninka wejigiisa ma uusan arag. Sidoo kalena nambarka taargada baabuurka ma uusan arag. Dambibaarayaashuna waxay u qaateen macluumaadkaas inay yihiin macluumaad waxtar leh.
sababtoo ah halka uu ninku u tilmaamay inuu baabuurka taagnaa iyo meeshii ay raadka ka heleen kalama aysan fogeyn, waa iska agdhowaayeen. markii ay baareen xabadihii ay jirka nimanka ka soo heleen iyo fooqyadii ay meeshii dilku ka dhacay ka soo heleen, waxay ogaadeen in qoriga xabadaha laga riday uu ahaa qoryaha 6 xabadood ka dhacdo. intaa kadib waxay tageen dukaamada qoryaha lagu iibiyo, waxayna ogaadeen in dadka qoryaha noocaasa iibsada magaalada oo dhan ay yihiin 150 qofood. 150 qofood qoryahooda ay baaritaan ku sameeyeen, laakiin waa isla hawaayeen. intaa kadib dambibaarayaashu waxay u qaateen in dilaagii uu gobolka isaga tegey. sidaa darteed macluumaadkii ay hayeen ee dilaaga iyo fooqyadii xabadaha ay heleen iyo nuuca qoriga ay u malaynayaan in dilka lagu geystay, macluumaadkaasoo dhan waxay u direen dhammaan xarumaha FBI-da ee ku yaala gobolada Maraykanka oo dhan. sidoo kale si dadka ay ugu dhiirigeliyaan in wixii macluumaada ay hayaan ay booliska la soo wadaagaan, waxay ku dhawaaqeen inay ku abaalmarinayaan $50,000 qofkii la soo wadaaga booliska macluumaad keeni kara in dilaagii lasoo qabto. intaa kadib dambibaarayaashu waxaa la soo xiriiray dad badan oo la soo wadaagay macluumaad. markii ay baareen waxay ogaadeen in intooda badan ay sax ahayn, sababtoo dadkaas waxay doonayeen keliya inay lacagta ku guulaystaan. qof walba waxbuu u soo sheegayay. dadkii macluumaadka la soo wadaagay waxaa ka mid ahaa gabar lagu magacaabo Miki waxay u sheegtay dambibaarayaasha inay dhowr maalin ka hor la kulantay nin ay u malaynayda inuu yahay dilaaga. intaa kadib dambibaarayaasha Miki waxay ugu yeereen xarunta booliska si ay u wareystaan. markii ay u timid Miki, waxay ogaadeen inay tahay ardayad jaamacadeed, sidoo kalena 2 maalin oo ka mid a asbuuca ay ku shaqaysan jirtay inay jirkeeda iibido oo jirkeeda ay ka ganacsato. maalin maalmaha ka mid a iyadoo jidka dhinaciisa socota, waxaa soo ag istaagay baabuur guduudan. ninkii baabuurka saaraana wuxuu ku yidhi iraac makeen, laakiin waa ay diiday sababtoo amaaninkaas inay shaqaydaba aysan doonayn, laakiin wuxuu u ballan qaaday inuu lacag badan siinayo. sidaa darteed waa ay soo raacday, wuxuuna isugu sheegay magaciisa in la yidhaahdo Bell Hackman. kadibna wuxuu geeyey hoteelka uu deganaa oo lagu magacaabo Regal Inn. hoteelka markii ay tageen, Miki waxay ku aragtay qolka hoteelka uu ka degan yahay 2 qoray, sidoo kalena wuxuu haystay bistoolad. markii ay hoteelka cabaar joogeen kadib, lacagteedii ayuu soo siiyey, kadibna waa uu soo qaaday si uu u geeyo meesha ay rabto. intii ay jidka socdeen waxay istaageen meel isgoysa. markii ay istaageen, baabuurka waxaa soo hormaray nin madooba, kadibna wuxuu la soo baxay ninka bistoolad. gabadhiina wuxuu ku yidhi, waxaan dilaala kiraysta u ahay kooxda KKK, Ku Klux Klan. kooxda KKK waa koox cusuriyiin oo caddaan ah oo caan ka ah Maraykanka. sidoo kale gabadhii wuxuu ku yidhi ma dila ninkan, kadibna waxay ku qanciday inuusan dilin ninka uu bistooladda iska dhigo. intaa kadib wuxuu ku yidhi arrinku ma dhib badna, horay ayaa u sameeyey. waxaa soo qaadanay bistoolad iyo baabuur, kadibna waxaa ku dhufanay xabad, kadibna waa iska tegey. dadku adiga ku mashquuli maayaane siduu isagu u dhacaya ayay ku mashquulayaan. laakiin Miki waxay ku tiri bistooladda naga dhig, kadibna bistooladda ayuu dhigay, kadibna wuxuu geeyey meeshii ay deganeed. sidoo kalena wuxuu la kulmay saaxiibteed oo ay waxyar sheekaysteen, kadibna waa ay kala tageen. dambibaarayaashu markii hore ma aysan aaminin inuu ninku dilaaga noqon karo, waxay islahaayeen wuxuu ahaa nin doonayay inuu iska gado gabadha. intaa kadib Miki wuxuu soo hordhigay masawirada qoryo, kadibna wuxuu ku yidhi 2dii qoray ee aa ku aragta hoteelka waxaa ka soo dhex saartaa masawiradan. waxay u sheegtay inaysan qoryaha saas ugu sii mashquulin, laakiin wuxuu ku qasbay inay qoryaha doorato. kadibna waxay dooratay 2 qori, laakiin waxaa isyeelo waayey 2dii qoray ay dooratay iyo 2dii qoray oo ay moodayeen inuu dilaagu wax ku dilay. intaa kadib dambibaarayaashu waxay ku mashquuleen inay baaraan wicitaanadii kale ee dadka. 3 isbuuc ka hor, maalin maalmaha ka mid a, waxaa soo gaaray dambibaarayaasha telegraf ay soo dirtay FBI-da, waxayna ku soo dirtay telegrafka macluumaadka dil ka dhacay magaalo lagu magacaabo Cincinnati oo ku taala gobolka Ohio. dambibaarayaashu markii ay fiiriyeenna waxay arkeen in 2 dhacdo isku eg yihiin. dhacdadaasuna waxay dhacday 2 bilood ka hor, bishii Juun 1980 magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio. Dante Brown oo 13 sano jir ahaa iyo Darren Lane oo 14 sano jir ahaa waxay u socdeen dukaan lagu iibiyo xalwada. intii ay laamiga socdeen waxaysan ogeyn in nin uu gaadayo. nin wata qori shamshuutara ama sniper ayaa wuxuu ugu soo dhuuntay caws dhexdiisa, kadibna wuxuu u toogtay 2dii cunug ee yaryaraa mid. 2dii cunugna meesha ayay ku dhaceen. ninkiina waa uu iska tegey oo goobta waa isaga baxsaday. intaa kadib waxaa yimid booliska. markii ay booliska yimideen, waxay u yimaadeen Darren Lane oo meyda. Dante Brown isagu waa uu sii noolaa weli, laakiin dhowr saacadood kadib waa uu geeriyooday. markii ay baareen meeshii uu dilka ka dhacayna waxay ka heleen fooqyada 4 xabadood, waxayna moodayeen in xabadaha qoriga laga riday uu yahay Roger nuuciisa 44.
dambi baarayaasha Cincinnati iyagu markay kiiska baareen kiiska waa ay xallin waayeen dilaagina waa ay waayeen dambi baarayaashii Salt Lake markay intaa ogaadeen waxay ogaadeen inay isku mid yihiin labada dhacdo sidaana waxay ku ogaadeen in isku dilaa ay dabagal ku hayaan intaa kadib waxay tageen hoteelkii ay gabadhu u sheegtay ee Regal Inn kadibna waxay ka soo qaateen foomkii uu isku diiwaan geliyey markii ay baareen magaca Bell Hagman waxay ogaadeen inuu yahay magac dhuga magac jira maaha Bell Hagman intaa kadib waxay tageen hoteelada ku yaala magaalada Salt Lake iyo magaalooyinka ka agdhow oo dhan waxayna ka baareen haddii ninkan uu hoteeladaas degay waxay ogaadeen inuu degay 8 hotel oo kala duwan magacyo kala duwanna uu ku degay siday ku ogaadeen magacyadaas kala duwan inuu isku hal qof yahay waxay isbarbar dhigayeen farta ku qoran warqadaha maadaama uu magaciisa iyo macluumaadkiisa ku qorayo markii uu foomka buuxinayo markii ay baareen magacyadaasna waxay ogaadeen in magacyada dhan ay fake yihiin intii ay hoteelada baarayeen waxay tageen hotel lagu magacaabo Sandman hoteelo maaha waxa waa moteelo waxay dhahaan waa hotel yariisa laakiin maadaama Soomaaliga uusan motel iyo hotel kala saarin magaca hotel ayaa iska wada isticmaali doonaa hotelkaas markii ay tageen oo ay soo qaateen warqadii foomka waxay arkeen in nambarka taargada ee ku qoran warqadda uu 2 nambar yahay nambarna waa nambarka ku diiwaan gashan nambarna meel dhinaca ayuu kaga qoran yahay intaa kadib waxay ku laabteen hotelka waxayna weydiiyeen maxay yihiin labada nambar ee kala duwan waxayna ogaadeen in maamulaha hotelka maalin kasta markii la gaaro 4 subaxnimo wuxuu tegi jiray baakinka baabuurta isagoo wata foomamka ay isku diiwaan geliyeen dadka hoteelka degan kadibna wuxuu fiiri jiray taargada baabuurta iyo taargada ay ku qoreen foomka inay isku mid yihiin haddii ay isku mid noqdaan waa isaga tegi jiray laakiin haddii ay isyeelan waayaan nambarka saxda ee ku qoran taargada baabuurka ayuu warqadda dhinac kaga qori jiray ninkaan intii hoteelka u deganaa subax ka mida subaxyada ayuu wuxuu tegay baakinka markii uu fiiriyey nambarka taargada ee baabuurka ku qoran iyo nambarka taargada ee ninka uu warqadda ku diiwaan geliyana wuxuu arkay inay kala duwan yihiin intaa kadibna warqadda wuxuu dhinaca uga qoray nambarka saxda ee taargada baabuurka sidaana waxay ku ogaadeen waxa ay kala yihiin labada nambar ee kala duwan taargadii ay soo heleen ee baabuurka markii ay baareen waxay ogaadeen in taargadan ay ka diiwaan gashan tahay magaalada Louisville ee gobolka Kentucky waxayna ogaadeen in qofka ku diiwaan gashan uu joogo magaalada Louisville intaa kadib dambi baarayaashii Salt Lake waxay macluumaadkaas la wadaageen dambi baarayaashii Cincinnati ee gobolka Ohio kuwii joogay Cincinnati waxay la xiriireen booliska magaalada Louisville waxayna ka codsadeen inay baaraan qof kale taargada baabuurkaas intaa kadib booliska Louisville waxay la kulmeen ninkii taargada ku diiwaan gashanaa wuxuuna u sheegay inuu baabuurka iska iibiyey dhowr bilood ka hor uuna qof ka iibiyey wuxuuna u sheegay magaca ninka uu ka iibiyey markii ay baareen magaca ninka uu ka iibiyeyna waxay ogaadeen inuu yahay magac buga oo waxba ka jirin intaa kadib booliska waxay ka codsadeen in nin wax sawira oo gacanta ku sawira uu u tilmaamo ninka sidii uu ekaa si uu u sawiro intaa kadibna ninka waa ay sawireen sidoo kale booliska magaalada Salt Lake waxay ogaadeen in Mickey saaxiibteed ay wax sawiri jirto oo ay sawirka ku wanaagsaneed horeyna waxaan u soo sheegnay in ninku uu la kulmay markii uu Mickey gurigeeda geynayay waxay ka codsadeen Mickey saaxiibteed inay ninka sawirto markii ay ninka sawirtay waxay heleen sawirka ninka sidoo kale booliskii magaalada Louisville sawirkii ay sawireen waxay u direen gobolka Ohio magaalada Cincinnati dambi baarayaasha Cincinnati sawirka waxay u soo direen dambi baarayaasha Salt Lake kuwii Salt Lake markii masawirka ay ka heleen Ohio waxay isbarbar dhigeen labadii masawirkii ay sawireen booliska magaalada Louisville iyo masawirkii ay sawirtay Mickey saaxiibteed waxayna arkeen in labada masawir ay isku eg yihiin sidaasna waxay ku ogaadeen inuu ninku isku mid yahay intaa kadibna masawiradii ay faafiyeen oo jaraa'idka ay ku faafiyeen intaa kadib dambi baarayaashu waxay u jareen warqad in la xiro ah dhammaan magacyadii uu ninku isticmaalay sidoo kale waxay ku diiwaan geliyeen magacyadaas oo dhan taargada baabuurka kadibna waxay geliyeen database-ka FBI-da hal bil kadib 25 September 1980 booliska deegaan lagu magacaabo Bob oo ku yaala Kentucky ayaa waxay yimideen hotel ku yaala deegaankaas hotelkana waxay u yimideen inay soo qabtaan 2 tuug oo hotelka ku soo dhuuntay intii ay boolisku bannaanka taagnaayeen waxaa u yimid maamulihii hotelka kadibna wuxuu u sheegay in mid ka mid a macaamiishiisa dadka hotelka degan uu dhibsaday nalalka booliska iyo sidoo kale buuqa ay samaynayaan sababtoo ah waxaa taagnaa bannaanka 7 ilaa 8 baabuur ay boolisku leeyihiin taliyihii booliska markii uu intaa u sheegay maamulihii hotelka wuxuu ku yidhi ninkaas qolkuu degan yahay kadibna wuxuu ku yidhi waa macaamiilka degan qolka 80 kadibna wuxuu ka codsaday inuu arko foomku isku diiwaan geliyey foomka markii uu arkana wuxuu ogaaday taargada baabuurkiisa intaa kadibna wuxuu tegay taargada baabuurka wuxuuna ku sameeyey baaritaan
wuxuuna ogaaday in ninku uu yahay nin la doondoonayo oo laga doondoonayo gobolka Utah. Intaa kadib waxay tageen boolisku qolkiisa kadibna meesha ay ka soo qabteen. Sidoo kalena waxay ka soo heleen qolkiisa 2 qoray oo sariirta dul saaran. Ninkiina waa ay soo xireen. Markaana wuxuu isku diiwaan geliyay ninku magaciisa dhabta ah, Joseph Paul Franklin. Intaa kadib ninkii waxaa la geeyey xarunta booliska ee deegaanka Bob. Sidoo kalena waxay la socotiyeen inay ninka soo qabteen dambibaarayaashii Salt Lake. Dambibaarayaashii Salt Lake-na isla markiiba waxay u soo duuleen gobolka Kentucky. Laakiin nasiib xumadooda intii aysan iman ka hor ayuu ninkii baxsaday. Ninka markii ay soo wadeen waxay fariisiyeen qol, kadibna waxaa wareysanayay mid dambibaaro ah. Dambibaarihii wuxuu doontay wuxuu cabo, kadibna waa uu soo laabtay. Markii uu soo laabtayna wuxuu ogaaday inuu ninkii daaqada ka booday, kadibna uu baxsaday. Dambibaarayaashii Utah ka yimid markii ay yimideen, ninkuna uu baxsaday. Waxay heleen baabuurkiisa, waxay hayeen baabuurka, kadibna waxay baaritaan ku sameeyeen baabuurka. Baabuurka markii ay baaritaan ku sameeyeen waxay keeneen laysinkiisa. Laysinka musawirka ku sawiran iyo markii ay isku fiiriyeen musawiradii ay horey u sawireen, waxay arkeen inay isku mid yihiin oo isku eg yihiin. Intaa kadib waxay sawireen lugihii baabuurka, waxayna barbar dhigeen raadka lugaha baabuurka raadkii ay ka soo heleen meeshii uu dilku ka dhacay, waxayna noqdeen isku mid. Sidaana waxay ku ogaadeen in baabuurku uu yahay baabuurkii uu watay ninka dilaaga ah. Sidoo kale wuxuu ahaa baabuurku baabuur guduudan oo nuuciisu yahay Camaro. Wuxuu ahaa baabuurku uu tilmaamay ninkii deriska la ahaa iyo gabadhii raacday ee Mickey. Intaa kadib booliska waxay faafiyeen musawiradiisa si qofkii aqoonsada uu booliska ula soo wadaago. Sidoo kale waxay baaritaan ku sameeyeen 2 qoray ay ka soo heleen qolkiisa. Qolka waxay ka soo heleen 2 qoray iyo 2 bistooladood. Markii ay baareen waxay ogaadeen inaysan ahayn hubkii wax lagu dilay. Intaa kadib waxay baareen magaciisa Joseph Paul Franklin. Waxayna ogaadeen in magaciisa uu bedelay oo si qaanuuniya uu magaciisa u bedelay. Magaciisa markii hore wuxuu ahaa James Clayton Vaughn. wuxuuna dhashay Abriil sanadkii 1950. Wuxuu ku dhashay magaalo lagu magacaabo Beartown oo ku taala gobolka Alabama. Intaa kadib dambibaarayaashu waxay tageen magaaladii uu ku dhashay si ay u wareystaan saaxiibadiisii hore isla soo koreen iyo dadkii qaraabada la ahaa. Magaalada Beartown xilligaas waxay u kala qaybsaneed 2 qaybood, qayb ay degaan madowgu iyo qayb ay degaan dadka caddaanka, waxaana ka dhexay jiray labadooda khilaafaad aad u badan. Waxay ogaadeen in Joseph uu magaaladaas ku dhashay uuna ku soo dhex koray caddaanka, sidaa darteedna uu ku soo dhex koray magaalo dadku ay isnacib yihiin dadka caddaanka iyo madowga. Cunsuriyaduna waxay ku soo bilaabatay tan iyo markii uu ilmaha yar ahaa. Sidoo kale waxay ogaadeen in qaar ka mid ah qaraabadiisa ay ka qayb qaateen dagaalkii labaad ee adduunka, waxayna ka barbar dagaalamayeen naasiyiintii Jarmalka. Sidoo kale magaciisa wuxuu u bedelay si uu ugu sharfo mid ka mid ah hogaamiyaashii naasiyiintii Jarmalka, wuxuuna ahaa wasiirkii warfaafinta ee dowladdii naasiyiintii Jarmalka, Paul Joseph Goebbels. Sidoo kale waxay ogaadeen inuu akhriyay buuggii Hitler, Kifaaxii halgankaygii. Intaa kadib dambibaarayaashu waxay ogaadeen markii uu baxsaday kadib inuu dhiiggiisa iibi jiray, gaar ahaan maadada balasma ee ku jirta dhiigga ayuu iibi jiray. Sidaa darteed xarumaha dhiigga lagu iibiyo ama dhiigga lagu tabaruco oo dhan waxay u qaybiyeen musawiradiisa iyo macluumaadkiisa. 28 Oktoobar Joseph wuxuu tegay xarun dhiigga lagu iibiyo oo ku taala daafaha magaalada Tampa ee gobolka Florida. Ninkii ka shaqaynayay goobtaasna markii uu arkay ninka waa uu aqoonsaday maadaama uu sawiradiisa hayay. Kadibna wuxuu la xiriiray nambar ku qornaa warqadda oo ay uga codsadeen dadka inay nambarkaas soo wacaan. Intaa kadibna waa la soo qabtay, waxaana lagu soo celiyay xabsiga, waxaana loo soo wareejiyey markaan magaalada Salt Lake. Markii la xiray kadib waxaa lagu xiray xabsi ay ilaaladiisu adag tahay. Dhowr maalin kadib markuu dhowr maalin xiray kadib waxaa lagu soo dhinac xiray nin kale oo lagu magacaabo Robert Herrera. Robert wuxuu ahaa tuuganimada caadaystay, waxaana laga soo wareejiyey xabsiga dadka guud ay ku wada jiraan sababtoo ah waxay istagaaleen nin madow ah. Markii uu intaa ogaaday Joseph wuxuu siiri sida adigoo kale dadka madow necab yahay, kadibna uu la saaxiibay wuxuuna u sheegay sirtiisa oo dhan. Intaa kadib Herrera wuxuu codsaday inuu dambibaarayaasha la kulmo. Markii uu dambibaarayaasha la kulmayna wuxuu u soo bandhigay heshiis. Wuxuu ku yidhi waxaan idiin soo gudbinayaa dhammaan macluumaadka uu ila wadaaga Joseph, idinkana waxaa idinka rabaa inay sii daydaan waqti ka horeeya waqtigii lagu xukumay. Wuxuuna u sheegay Herrera inuu Joseph u sheegay in labadii nin ee lagu dilay Salt Lake uu isagu dilay. Wuxuu yidhi Herrera Joseph wuxuu yidhi markii aan arkay 2 nin oo madmadow oo la socota 2 gabdhood oo cadcad, waxaan dareemay inay qasab tahay inay 2 nin dhintaan, sidaa darteed ayuuna u dilay.
dambibaarayaashu markii hore kuma aysan kalsoonaa karin in maxbuusa macluumaadkiisa, laakiin waxay ka codsadeen macluumaad intaa ka badan. Wuxuu u sheegay halkii uu aaday Joseph markii uu dilka geystay kadib. Markii uu dilka geystay kadib, wuxuu aaday magaalo lagu magacaabo Ogden oo 30 kiiloomitir u jirta magaalada Salt Lake. Kadibna wuxuu aaday gobolka Nevada, kadibna wuxuu u sii gudbay gobolka California, gaar ahaan magaalada San Francisco. Markii uu tagay San Francisco, wuxuu tagay suuq lagu iibiyo alaabaha celiska oo ku yaala bannaanka magaalada San Francisco. Qorigii uu dilka ku geystayna halkaas ayuu isaga iibiyey. Intaa kadib dambibaarayaashu waxay tageen gobolka California, waxayna tageen suuqa lagu iibiyo alaabaha celiska ee ku yaala bannaanka magaalada San Francisco. Kadibna waxay wareysteen nimanka hubka iibiya, waxayna tuseen masawirka Joseph, waxayna weydiiyeen haddii ninkan ay meesha ku arkeen. Qaar badan oo ka mid ah ganacsatada hubka ayaan waxay u xaqiijiyeen in ninkan ay arkeen isagoo hub iska iibinaya oo suuqan hub isaga iibinaya. Inkastoo ay waayeen qorigii markii ay raadiyeen, laakiin haddana waxay ogaadeen in macluumaadka Herrera ay sax tahay oo lagu kalsoonaa karo. Intaa kadib Herrera waxay ka codsadeen inuu ninka macluumaad dheeriya uu ka keeno. Intaa kadib Herrera wuxuu u sheegay inuu Joseph u sheegay in sanadkii 1977 uu toogtay nin lagu magacaabo Larry Flint. Arrinkaasoo keenay in Larry uu noqdo paralysis oo uu soco waayo. Sababta uu u toogtay Larryna waxay ahayd sababtoo wuxuu isla sawiray nin madow iyo naag cad, kadibna wuxuu ku soo sawiray wargeyskiisa. Sidoo kale wuxuu u sheegay inuu toogtay laakiin waa uu dhaawacmo dhiman sanadkii 1980 nin lagu magacaabo Vernon Jordan. Intaa kadib dambibaarayaashu waxay dareemeen inay haystaan caddaymo ku filan, kadibna waxaa la geeyey maxkamadda. Maxkamaddana waxay ku eedeysay dilka Ted Fields iyo David Martin, waxayna ku xukuntay xabsi daa'im. Intii uu ku jiray xabsiga 17 sano ayuu xabsiga ku jiray. 17 sano wuxuu qirtay mar ka dambeeyay uu qiranayay inuu dilay 16 qofood oo kala duwan, uuna ku dilay 8 gobol oo kala duwan. Sidoo kale xukunnadii ku dhacay waxaa ka mid ahaa maxkamad ku taala gobolka Missouri ayaa waxay ku xukuntay xukun dila, sababtoo ah gobolkaasna wuxuu ku dilay dad kale. 2 qof kale ayuu ku dilay gobolka Missouri, wuxuuna xabsiga ku jiray ilaa laga soo gaaray 2013. Bishii November 20keedii 2013 ayaa ugu dambeyntii lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa, waxaana lagu dilay gobolka Missouri. Muuqaalkii maanta intaasuu ka egyahay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa amaano Allah.